Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo barasaab ku-xigeenku waxa uu saaka kormeerkiisa oo indhaynayna ku tagay laamaha dawladda si uu ugu dabagalo shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliland. Kormeerkan barasaabka waxa ku helinayay isuduwaha hay'adda shaqaalaha gobolka Togdheer waxaana kamid ahaa goobaha ay tageen barasaab ku-xigeenka iyo wafdigani wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, isbitaalka guud ee magaalada Burco, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaarado kale oo badan. Waxaanay warbixin kala duwan ka dhageysteen maamulada xarumahan dawladda waxaana kamid ah hadaladoodii. Badkumaadsantahay horta kormeerka aad nagu timi anagoo shaqadayadii hawlmaalmeedkayga gudanayna runtii waxaynu ogeyno aynu shaqa fiilkii xoolaha tiimamkii daaweynta xoolaha ayaa waqtigoodii soo dhamaaday sida caadada u ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga markaanu had iyo goor u baxno fiilasha noocan oo kale daaweynta hadhaaga dawooyinka iyo qashinada soo hadha environmental protection baan ilaalinta deegaanka aynu ka qayb qaadanaa. Gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasaabka gobolka Togdheer oo maanta booqasho ugu yimid isbitaalka guud ee magaalada Burco isaga iyo barasaabka saxaafadda aad baan u soo dhaweynaynaa. runtii gudoomiyuhu ku mahadsan yahay inuu nala soo eego adeegyada iyo hawshan qaranka u hayno gaar ahaan gobolka Togdheer iyo magaalada Burco. Waa ku soo dhaweynaynaa gudoomiye haddaan warbixin yar oo kooban kaasi iyo guud ahaan gobolka iyo hawsha nagala soo kulantay. runtii wiigii maalin baanu leenahay kulan, maalinta Khamiista ayaanu waxaanu leenahay kulan runtii aanu isku xogeysano kormeerka gobolka waxbarashada iyo maamulka wiiga wixii hawlaha qarsoomay. halkan kormeerkiisa loogu yimid gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha gobolka Togdheer waa ku mahadsantahay gudoomiye kormeerka aad nagu timi. Markii uu kormeerku soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasaabka Maxamed Cabdullaahi Nafaqo isuduwaha hay'adda shaqaalaha ee gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladoodii. ay taariikhdu tahay 3kii bishii 10aad 2019 aanu ku kormeeraynay ama ku gaala bixinaynay kormeer hay'adaha degdega laamaha kala duwan ee wasaaradaha ama dawladda. kormeerkaas ugu weheliyay isuduwaha shaqada iyo shaqaalaha hay'adda shaqaalaha falillahi alhamdu sida aad arkayseen si habsami leh ee wanaagsan ee lagu yaqaanay shaqaalaweynaha gobolka Togdheer ama wasaaradaha ayaa loogu adeegayay bulshadii. waxaan ka bilownay wasaaradda waxbarashada oo runtii iyadoo ay ka socdaan hawl maalmeedkii ama howlwadanadii wasaaradda waxbarashada aynu iyagana marnay oo xaaladii ay ku jireen iyo tashigii asbuuciga ahaa ay sameynayeen iyo kormeeradoodii. waxaan sidoo kale marnay isbitaalka weyn oo runtii agaasimahan aad ugu mahad celinayo isagana ay ka socdeen dhismayaal kuwii waliba madaxweynuhu uu dhagax dhigay sidoo kale bulshadana si wanaagsan loogu adeegayay. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa bilicda iyo horumarka iyo quruxda ka muuqatay isbitaalka iyo waliba bulshada sida loogu adeegay. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa agaasimaha iyo guud hadeer oo nagu hogaaminayay kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer kormeer kadisa oo aanu ku soo maraynay wasaaradaha iyo laamaha dawladda ee gobolka Togdheer qaar kamid ah dhammaan xafiisyada aanu tagnay oo nagu hogaaminayay kormeerkaas nagu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gobolku waxaan ugu tagnay dhammaan shaqaalaweynaha iyo maamulkoodii oo ku sugan goobihii shaqo xilligii shaqada. bilihii u dambeeyay waxa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo xagga horumarka ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi, Somali Cable TV, Burco.